Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada channelkayga mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afaraadba. Maanta waxaan sameysanaynaa baradhadaas aad u jeediin sidaas u quruxda badan. Waa roasted garlic potato wedges sida loo sameynayo la daawada insha Allah. Waxaad u baahan tahay baradho, butter ayuu nooc butterkaad haysatid, salt, black pepper, olive oil, kabsar caleen iyo toon baad u baahan tahay. Intaasaad u baahan tahay. Marka baradhadaadi baad jarjaranaysaa marka ugu horeysa size yaro medium baad ka dhiganaysaa, zaaidna u waaweyneyn zaaidna u yaryarayn. Chipska caadiga waa inay ka yara weynaato because wedges baa la dhahaa. Marka aad jarjaratid saad u arkaysiin baan u jarjarayaa. Waa 3 xabo oo waaweyn baan isticmaalayaa. Size-ka familigaada ku xiran tahay markasta waxaad sameynaysid. Marka waxaad sameynaysaa weel baad soo qaadanaysaa, baradhadaadii aad jarjaratay baad ku ridanaysaa sidaas aad u arkaysiin. Markaad baradhada ku ridatid baad ku darsanaysaa waxyaalahaad ku darsanaysay oo ah black pepper, filfisha madow, adu qiyaastaada dhadhankaada, cusbaad ku darsanaysaa haddana. Marka intaas isku dartid waxaad ku daraysaa oo kale olive oil aduu in 2 qaado yaryar u dhigmata ama 1 qaado weyn. intaas markaad isku dartid waad isku dhex walaaqaysaa si fiican baad yani isku dhex gelinaysaa. gacantaad isticmaali kartaa hadaa rabtid hadba sida ku easysan. marka intaas si fiican isku dhex gelisid waxaad sameynaysaa oo kale waxaad weelkaad ku ridan lahayd ovenka kula gashan lahayd baad soo qaadanaysaa, potato-gaadi baad ku shubanaysaa ama baradhadaadii, ama waad dhigdhigi kartaa ama waad iskaga daadin kartaa hadba saad rabtid. ovenkan already wuu ii shidan yahay, ovenkaad gelinaysaa markaad saas sameysid. marka intaas markaan isku sameeyey waxaan uga daray korka dhacaankii weelka ku haray. marka wakaasaa hadda waxaan sameynayaa toon baan soo qaadanayaa isku taala toonta dhan. marka waxaan ka jarayaa afka horan saas oo ka jarayaa. afka hore markaan ka jaro ayadoo saasa baan foil ku xirayaa saad aragtiinba. foilkaasaan ku duuduubayaa. olive oil yar baan ku dhibcinayaa, sorry. olive oil markaad ku dartid foilkaad ku xiraysaa markaa saas arkaysiin. foilka markaad ku xirtid baradhadii aad ovenka gelinaysay baad gees ka dhigaysaa, yani gees baad iska saaraysaa because hadhow baad isticmaalaysaa. marka ovenka waxaan geliyey 20 minute ama 15 minute ilaa 20 minute baan geliyey. hadda dhinac kale aan u gedgedinayaa si isku waqti u karto, haddii kale hoos bay hadhow cadaan ka noqonaysaa. so waxaan sameeyey hadda digsi baan soo qaatay, 2 qaato butter waaweyn baan ku dartay, waan walaaqay. haddana waxaan soo qaatay garlic-kii ovenka ku jirtay. marka xaggan aan saas ugu tiijinayaa, yani waxaan rabaa garlic inaan kala baxo si u karto u jilacdo waad aragtiin. ovenkii kula jirtay baradhada, butterkiiba marka waxaad sameynaysaa korkaad uga daraysaa. marka butterka korka uga dartid waad isku walaaqaysaa. marka intaas isku walaaqdid waxaad ku daraysaa kabsar caleen baad ku daraysaa, kabsar caleentaadii ku jarjarneed baad ku daraysaa. intaas marka saas aduu 2 daqiiqo waqti u dhow baad isku dhex walaaqaysaa, si fiican isku dhex gelinaysaa sida arkaysiinba. yani baradhadaadaad korka uga shubanaysaa wakaa way soo karkartay. waa butterkii, kabsar caleentii iyo toontii ovenka aan gashanay. baradhadaadii baad soo saaranaysaa marka 15 daqiiqo kadib dhinaca kale. taasaas u arkaysiin way guduudatay. ovenka waxaan geliyey 180 ilaa 160 hadba marna waan ku gaabinayay marna waan ku dheereynayay. marka hadda wakaa waxaad isku soo walaaqatay baad korka uga shubaysaa. kalar fiican oo macaan, carafta waa yaabaysaa bay siinaysaa. marka wakaasaa si fiican isku dhexgeli. taa baradhadaas quruxda badan oo macaan oo waqti badanna kaa qaadanaynin. ani zaaid baan u jeclahay. wax kastaad ku cuni kartaa, bariis baad ku cuni kartaa, keligeed baad cuni kartaa. ciyaalka xataa way jecelyihiin maasha Allah. daawasho wacan. thank you for watching. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.